wararka ka imanaya gobolka Saraar ayaa waxay sheegayaan in gabadh yar oo 18 jir ah oo ari la joogtay lagu dilay deegaanka Gumbura Xangeeyo oo ka tirsan gobolkaasi Saraar. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in ka hor intaan gabadha yar la dilin kufsi loo geystay. haddaba khadka waxa ku jira gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasin Qodax oo isagu kamid ahaa mas'uuliyiinta tegay goobta lagu dilay gabadha yar. gudoomiye marka hore ku soo dhow telefishinka Home Cable marka labaadna bal waxaad faahfaahin naga siisaa dhacdadaasi iyo qaabkay u dhacday. Assalaamu calaykum mar labaadka waxaan iminka joognaa degmada Waridaad waxaanu ka nimi degmada Ceelal Soonaheeda. degmada Ceelal waa gobolka Saraar magaalada Caynaba 190 kiiloomitir bay u jirtaa. deegaanka degmada Ceelal waxaa lagu dilay gabar yar oo hodan la yiraahdo marxuumadaas way dhimatay raantiina cadow uun baa helay oo si foolxun baa loo dilay. marka gabadha yar ee hodan lagu magacaabi jiray da'deedu ilaa inteen leeg bay ahayd? asal ustaad iyo toban baa loogu sheegay inay tahay. marka xagee lagu dilay yacni qaab sidee baa loo dilay xagee joogtay markii la dilay? hodan markii la dilay waxay la joogtay ari ay leeyihiin soonuuna cidlu ahaa isla markaas in la dilay geli hore ayaa loo filayaa. arigii unbaa galabtii fiidkii laga waayey waa la baadidoon tegey iyadoo la dilay oo gudin lala dhacay oo geed lagu riday qalanqala ayaa dadkii heleen. annagu isla markaa biliiskii Ceelad joogay baan hawlgelinay. biliiskii Waridaad joogayna waanu ka daba diray. subaxiina aniga iyo taliyihii qaybta isuduwihii wasaaradda caafimaadka laba dhakhtar CID maayir ku-xigeenkii degmada Caynaba iyo ciidan biliisa ku baxay. waanu tagnay meeshii waxaanu hawlgalkii aanu galay iyo baaritaan la galay. waxaa lagu soo laba eedaysane kolley wax badan oo dee anigu aanan iminka halkan ka sheegayn oo CID ay soo qorotay ama ay soo aragtay ama ay doonatayna waa jiraan. markaa taasuna baaritaan bay ku xidhan tahay laakiin marxuumadaas waa dhimatay. labada eedaysanana waa loo hayaa. baaritaan badanna waa la galay. wasaaradda caafimaadka iyadu baaritaankeedu way sidataa oo dee gabadha marka hore in la kubsaday iyo inaan la kubsan ee iyadu baaritaan u gashay. CID-duna baaritaan waxay u gashay qaabka gabadha loo dilay iyo cidda dishay iyo raad. isla markaa hawshaas xaggaa way nooga soo dhamaatay. ciidankana iminkana Waridaad baan joognaa waanu ka dhadaynaynaa insha Allah caawan tegaynaa Caynaba. wixii ka soo baxana waa la arkay. hadda meydkii gabadha yari ma halkaa ayaad marinaysaan oo Waridaad buu yaalaa mise meel kale loo qaado? meydkii gabadha dadkii gabadha ay ka dhimatay waxay leeyihiin meydka talaagad noo geliya. haddana waxay isku qancinayaan inay aasaan laakiin taas waa wax iska dhammaanayo oo iyadu meydku dhimay waana la aasaya ciidanka Ilaahay. waa sida markaa gudoomiye xubno qoyska ka tirsan oo aan la xidhiidhay waxay ii sheegeen in ay tuhmayaan in ka hor intaan inanta la dilin kufsi loo geystay. marka miyaanay habboonayn in baaritaan caafimaad ay marto ka hor intaan la aasin? xasan waa si wanaagsan. horta annagu markii aan baxaynay maamul isu dhamaystiran ayaanu ahayn. waxaanu ahayn CID dambiga baaraysay taliyihii qaybta wasaaraddii caafimaadka oo isuduwihii iyo laba dhakhtar oo wata ay tahay. hawshii isuduwaha iyo labada dhakhtar ee caafimaadka gabadha ay hubinayeen inay layska dilay iyo in wax kale jiraan way soo dhamaysteen iyagu oo way sitaan jawaabtii. haye waxay ka sheegayaan un marka goobaha looga baahdo ayay ka sheegeen. sidaasoo kale CID-du way baaritaan tagtay waxaydina way sidataa iyaduna. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasin Qodax oo qadka telefoonka iigu waramayay.